الله تعالى وبركاته نبض ضابطيال ميل كستود كسغنتين با halkan waa TV-ga madaxa banaan ee bulsha TV gaaraan studio koowaad magaalada Burco daawadayaal hadaan oo kale waxa la soo gaaray waqtigan hawada idin soo marin jirnay war wixii naga soo gaaray dalkii dabadaba qodobada warka xaflad ballaaran oo lagu shaacinayay dugsiga sare ee bariga Afrika ayaa maalintii shalahayd ka dhacday gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer munaasabadan ballaaran ee lagu shaacinayay dugsiga sare ee bariga Afrika ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer وقال وحكرت دليرة يوريبا قوي هنا دو تربضان قد سومالي لنا يمركو غوريسي شاعة كقاضي نيسو دويني سو شركة دقلي يهي دلك هنديو شاعة كقاضي إني مال بشي بلارن كسامين سو دلك نيشمورية دا سومالي لان رئيس الوزراء دولة كوميل غار كي سوماليا يا شاقيني حكومتها هاي مركز الدياريين إني وضع هذا البوحي لقاته كوحدة ميال كادقي حركة الشباب دولة ودن كمرايكن كايا يدون الشاعة كقاضي إني سو دويني سو شيز كاي سومالي دو كوقاتين مقالة مقدشة عاصمة سوماليا لانك كلا ورركا نغسو غاري مقالة تربلي عاصمة دلك ليبيا يا شيقيا مدحوينها دلكاسي معمر القذافي وبيني ورر شيقيا إن معمر القذافي وسكغا بحي غودها دلك ليبيا داوديال intaas waxaan qaar ka tirsan qodobada warka imkii haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan xaflad ballaaran oo lagu daafurayay dugsiga sare ee bariga Afrika ayaa maalintii shalahayd ka dhacday gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer xafladani ballaaran ee lagu daafurayay dugsiga sare ee bariga Afrika ayaa waxa ka soo qayb galay uqaal waxgarad aqoon-yahano iyo waliba dadweynaha aad u tiro badan warkaas oo faahfaahsan waxayna ayaa wariye Ali Daahir Maxamed boss xaflad si heer sare loo soo agaasimeen maamulka dugsiga bariga Afrika ayaa ka dhacday xarunta dugsiga oo ku taala xaafadda October ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay uqaal culimaawidiin abwaano qurbajoog aqoon-yahan xubno ka tirsan ururka sahal iyo mas'uuliyiinta hay'adda masna oo ah hay'adii maalgelisay dhisitaanka dugsiga waxaana furay xafladda furitaanka dugsiga abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadrawi waxaanu mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhisitaanka dugsiga waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqay gabadhii bixisay dhulka laga dhisay iyo hay'adda masna oo ah hay'adda uu hoostegayo dugsigu waxaanu ku dheeraaday abwaanku qiimaha ay leedahay waxbarashadu isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri insha Allah wadiga soo socda gabadhii doona munaasabadan maanta haddii ay cid waliba la timaado yuhuuddaas iyo dayaadka waxayna xumaan lahaa ma jirto aynu hawliheena iyo danaheena inagu aynu qabsanno dee karaamo iyo sharaf iyo raganimo mooyaan ayuunbaa inoogu kordhaya sidoo kale waxaa ka hadlay madaxa waxbarashada ee hay'adda masna Cabdiraxmaan Khayre waxaanu tibaaxay inay hirgashay ay ku faraxsan yihiin himiladii ay in badan higsanayeen ee ahayd ka soo qaybgalka xafladda wanqalka furitaanka dugsiga waxaanu ka dhawaajiyay habka iyo hanaanka uu doonayo inuu ku shaqeeyo dugsigu waxaanu yiri isagoo arrimahaasi ka hadlay waxyaaba ugu diibsanay qabto waxa ka mid ah tacliinta oo ka shaqeyso oo alxamdulillah marka waxa ay maanta Soomaaliland ay aad u muuqato waxaa la socotay iskuulka dugsiga sare Elays halka uu kaga jiro Soomaaliland maanta dhowr goorta marka national examination ama imtixaanka qaranka uu kaalida koowaad galay oo ka dhow dambeysay iskuuladaasi iskuulka sare Elays iyo shan iskuul oo saddex geeso ku yaala iyo iskuulka geeska Afrika ee Burco ku yaala intaaba lixda iskuul bay hay'adaha oo marka waxa weeyaan hoos yimaadaan nasiiboonaga marka dadkii khayrka bixiyay markii marka odayaasha iyo aqoonyahanka dadkii isku tageen in hay'adan lagu wadeejiyay inay socodsiiso waxa weeyaan barnaamijka tacliimiga ah inaanu socodsiino waxa la wixii aan ka qaban karno ka qabano oo macallimiinta loo doorano oo maamul wanaagsan ku sameeyno oo marka waxa sida loo bixiyay khayrka loo bixiyay waqtiga dadkii la baxay u bixiyay inaanu ka horumarkiisa ka shaqeyno waxa isla madasha ka hadlay maamulaha dugsiga Abubakar Carabileeye waxaanu maamuluhu u mahad celiyay shirkadaha iyo shakhsiyaadka ka qayb qaatay hirgelitaanka iyo dhismaha dugsiga iyadoona uu carabaabay maamuluhu inay albaabada u furayaan dugsiga sabtida inagu soo fool ay taariikhdu tahay 10 bisha 9aad ee sanada 2011
waxaana munaasabada ka hadlay guddiga iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadda October sheegayna inay soo dhaweynayaan isla markaana ay la shaqeynayaan dugsiga Bariga Afrika. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Ku-meel gaadhka ee Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumaddan ay diyaar u yihiin inay wada hadal buuxa la qaataan kooxda mayalka adag ee xarakatul shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Ku-meel gaadhka ee Soomaaliya Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo la hadlayay saxaafadda maxalliga ayaa sheegay in Dowladda Ku-meel gaadhka ee Soomaaliya ay wada hadal la furayso kooxda mayalka adag ee xarakatul shabaab isagoo shuruud ku xidhay in kooxda mayalka adag ee xarakatul shabaab ay dhigaan hubka. Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo magaalada Nairobi ee dalka Kenya uga qayb galaya shir looga hadlayo abaaraha ku dhuftay dalalka Bariga Afrika ayaa sheegay in ka go'an tahay inay wada hadal la furaan kooxda mayalka adag ee al-shabaab isagoo sheegay in dowladahan ay qorshe ugu jirto sidii dalka oo dhan nabad loogu soo dabaali lahaa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dhowr jeer hore ay kula taliyeen kooxda al-shabaab oo inta badan ka talin jirtay dalka Soomaaliya inay u soo fadhiistaan miiska wada hadalka si looga gudbo dhibaatada dabada dheeraatay ka jirta dalka Soomaaliya. dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maalintii Shalay warbaahinta kula hadlay dalka Nairobi ayaa daboolka ka qaaday in ciidamada dheeraada lagu xoojinayo Amnisoon ay u suurto gashay inay keenaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Xukuumadda Dowladda Ku-meel gaadhka ee Soomaaliya ayaa ka talisay degmooyinka Muqdisho intooda badan halkay kooxda mayalka adag ee xarakatul shabaab ay ka taliso gobollo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo waliba degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho. Dowladda waddanka Mareykanka ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso heshiiska ay Soomaalidu ku kala saxdeen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. warkaas oo faahfaahsan waxayna haya Cabdirsaaq Faarax Cabdullaahi Cabdirsaaq Nakruma. Dowladda Washington ayaa soo dhaweysay Khamiistii shalay heshiiskii lagu gaaray shirkii wada tashiga Soomaalida ee toddobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho kaasoo qorshihiisu ahaa in laga shaqeeyo sidii looga bixi lahaa xilliga ku-meel gaadhka looguna gudbi lahaa dowlad joogta ah. shirkaas ayaa waxaa ka soo qayb galay dhinaca Soomaalida oo ay ku jirto dowladda ku-meel gaadhka Soomaaliya, maamulka Puntland, Galmudug, Ahlusunna wal Jamaaca, waxaana 3 maalmood ee u socday laga doodiyo qodobo ay ka mid ahaayeen amniga, dastuurka, dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta. sidoo kale dowladda ku-meel gaadhka ee Soomaaliya ayaa lagula taliyay inay ka dadaasho sidii ay nabad u xaqiijin lahayd iyadoo la sheegay in horumar laga gaadho siyaasadda ay ku xiran tahay horumarka la gaadho nabadda. kumanaan Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inay maalin walba u dhintaan macaluusha ka jirta iyo dagaalada ugu yaraan 4 meelood 3 meel. shacabka Soomaalida ayaa qarka u saaran in macaluusha awgeed u baaba'aan intooda badan ay yihiin caruur. dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi Liibiya Colonel Muammar al-Qaddafi uu beeniyay warar sheegaya in Colonel Muammar al-Qaddafi uu isaga baxay dalka Liibiya. hogaamiyaha dalka Liibiya Colonel Muammar al-Qaddafi ayaa beeniyay inuu ka baxay gudaha dalka Liibiya isagoo sheegay madaxweynaha dalka Liibiya in hadallada sheegaya inuu baxay dalka Nigeria inay yihiin qaar been abuuraha. Qadaafi ayaa ugu baaqay dadka reer Liibiya inay hubka qaataan isla markaasna ay la dagaalamaan kooxaha mucaaradka ee dalka inta badan gacanta ku haya. hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha dalka Liibiya Colonel Muammar al-Qaddafi oo laga soo daayay telefishinka dalka Liibiya ee xaruntiisa ayaa hadaladii laga sheegayay ahaa inuu ka baxay dalka Liibiya dalka ay jaarka yihiin ee Nigeria uu yahay dagaal dhinaca niyadda ama nafsi ah isagoo cadeeyay inuu ku sugan yahay gudaha dalka Liibiya. Colonel Muammar al-Qaddafi oo ka hadlaya 200 oo baabuur oo la sheegay in toddobaadkii hore ay galeen ama ay u tallaabeen dalka Nigeria ayaa sheegay in maalin walba ay gali jireen dalalka jaarka kooxaha dadka taariibiya iyo kuwa daroogada iibiya isla markaasna aan ahayn markii uu horeysay wadamada dariska ee Suudaan iyo Mali, Chad, Algeria iyo Niger ay galeen baabuur badan oo dalka Liibiya ka baxsaday laakiin aanay baabuurtaas ahayn buu yiri qaar isaga siday ama u baxsaday. dhinaca kale dagaal ayaa ka bilaabmay magaalada la isku horfadhiyay ayamihii u dambeeyay bin Walid taasi oo magaalooyinka Farakotirska ay weli gacanta ugu sii jira Colonel Muammar al-Qaddafi. dagaaladan oo dhexmaray ciidamada Suwaar ee dalkaasi qabsaday iyo kuwa taageera hogaamiyaha dalka Liibiya Colonel Muammar al-Qaddafi ayaa socday muddo kooban iyadoo ciidamada mucaaradku ay sheegeen in la soo weeraray isla markaasna ay nafahooda difaacayeen. mas'uuliyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay weli ka warsugayaan ciidamada taageersan hogaamiyaha dalka Liibiya iyagoo xusay inay weli siinayaan ciidamada fursad ay isku soo dhiibaan. daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa habeenkan caawa warkeed kala socoteen TV-ga madaxa bannaan ee Bulsha TV.
dabcan warka waxay la socodsiinaya anigoo maxamed ibraahim xasan tan iyo intaan ku kulmi doono warkan war lamid ah dhammaantiin waxaan kaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh